ragga iyo dumarka ay tartamaan dadka qaarkood ayaa walaalaha qaarkood waxay dhahayeen waxay tahay laakiin dumarka ayaa naga badan waxaana ka sheekeyn doonaa waxay tahay ma sheega insha Allah taala idinka arki doona badul للدنيا سفراء للحب نشأنا وعلى الحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتي إذا أن الله دلتي وجعله مال والبدوكا كجوكتان أديت بأو سلامتي قدوم سلام قالي أكتمت قلبي إذن جعل ولا لك لدون أي وحيدها هي وحيتها هي أهوي سؤاله أسبوع لسودا في مالنتا بعد أهيت والله على الكرة النقطة برنامج رمضان وعجيب أتكيه لدوتنا ينصورنا إن شاء الله تعالى وحنا كشيكين دونا وحيتها هي ما شيء إن شاء الله تعالى ذيك أكيد دونا بدولا إدمو أديت بيدكو وحيسي سؤال شو حيتها مكة ومحي سؤالها ما تنوط الجل أصحابتي إذا أن جعل يعني كجواب دون بلانتو حيها وحيتها إن رجع يضمك أي ترتمان ضدك قاقود أيا ولا قاقود وحيدها وحيتها لكن ضمك أيا نجبلا لما إن شاء الله تعالى سدح السؤالات ويدي ويدينا يا كذب أنا كدونا إن شاء الله تعالى قفك كجواب دونا كذب ما ننت جمعة أيان إن شاء الله تعالى عن شيء دونا هي ديار متقلين كاجا وقد هذا بيها ما سوق هذا إن شاء الله تعالى ما دام أي سؤال وده هي رمضان وحنسته وحيته سؤاله وحتكلك وحيته سؤالك صابص رمضان سي أنت أنا رمضان لو قلنا كور عن خبرة يا علمي يا أقون أو يا شنو أحكام تكوصابص رمضان إن شاء الله تعالى سؤاشا ugu horeeya waxay tahay yay waajib ku tahay Ramadan yay waajib ku tahay in uu soomo yay waajib ku tahay waa kuma dadka waajib ay ku tahay inay soomaan ko su'aasha labaad waa maxaa buriya soonka aniga waan soomanahay arintaas ayaan sameeyay soonkeyga way burtay waa maxay waxyaabaha buriya soonka maxay kala yihiin su'aasha saddexaad goorme ayaa waajib laga dhigay in la soomo bisha barakaysan ee Ramadan haddaad og tahay jawaabaha saddexda su'aalood insha Allah ta'ala waxa ku soo qortaa waxay tahay commentiga waa kuma marka qofka ka jawaabi doona waxa laga yaabaa waxay tahay magacaaga in maanta jumcada aan sheegay insha Allah ta'ala aan idin duceeyo hana iloobin inaad like garaysid sidoo kale inaad dhahdid subscribe si aad u socotid muuqaal walba iyo video walba cusub insha Allah ta'ala waad mahadsantahay jumcada ay noo tahay assalaamu calaykum